Assalaamu calaykum. 1 Nofeembar 2021 waxaa lagu soo shaaciyey website-ka The European Heart Journal ee taabacsan Oxford Academic daraasad cilmiyadeed. Baaritaan lagu sameeyey 88,000 oo qof. Daraasaddan waxaa sidoo kale sii shaaciyey The Guardian iyo sidoo kale BBC-da. Baaritaankan waxaa lagu ogaaday in cudurrada ku dhaca wadnaha iyo sidoo kale halbowlayaasha dhiigga iyo dhafarka in uu xiriir weyn ka dhexeeyo. Waxay isweydiinayeen farqiga u dhexeeya hurdada maalinka ah iyo hurdada habeenka. Haddaba natiijo ahaan waxay isku raaceen in dadka xilliga hore seexda habeenkii ay ka yar yihiin dhinaca khatarta cudurrada wadnaha dadka dhafra. Sidoo kale daraasaddan waxaa lagu qeexay xilliga ugu dambeyn ee habboon tahay habeenkii in la seexdo, waana 10 habeenimo ama 4 saac habeenimo, ilaa iyo ugu dambeyn 5 saac habeenimo ama 11 habeenimo. Sidoo kale daraasadda waxaa lagu sheegay xilliyada ugu xun ay tahay qofka inuu seexdo, waana bacdal maqribka iyo 1 habeenimo wixii ka dambeeya ama 7 saac habeenimo wixii ka dambeeya. Waxaa jirto daraasad cilmiyadeed kale ee sameysay jaamacadda Texas ee waddanka Mareykanka 2008. Waxay ku sheegeen daraasaddaas in ardayda habeenkii xilliga hore seexata ee natiijo ahaan ka fiican yihiin ardayda xilliga dambe seexata habeenkii. Markan aan u imaano dhafarka diinteenna maxay ka qabtaa? Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay kalaamkiisa suuradda Camma aayadda 9 iyo aayadda 10. wajacalnaa nawmakum subaata wajacalna alleyla libaasa. Hurdadiina waxaa inkaga dhignay mid raaxo leh, habeenkana waxaa inkaga dhignay dhar. Subaadka walaalayaal culummada waxay isku raacday in laga helo waxa ka dambeeyo bacdal cishaha hurdada ah ilaa iyo 6 saac habeenimo. Balse 6 saac habeenimo hurdada ka dambeysa in ay tahay hurdo aan raaxo badnayn marka loo eego middan hore. Waxaa kaloo jiro xadiis laga wariyey nebiga uu ka wariyey Abi Hurayra radiyallahu anhu. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودفسن جري هردada بعد المغرب أو عشاها كهرة iyo sheekada ama soo jeedka بعد العشاء. haddaba walaalayaal shucuubta maanta ugu dhafarka badan waa shucuubta islaamka, shucuubta carabta ha ahaato ama shucuubteenna Soomaalida. Haddaa annaga nahay Soomaali weliba khaasatan aad ayuu u badan yahay dhafarkeenna haddaan ka soo tago ummadaha kale. Marka walaalayaal isku day maanta kadib in aadan dhafrin, siiba dhalinyarada aad ayay u dhafraan. Anigaba sidoo kale nin dhalinyaro adinka camalaan ahay, ma garatay? Marka dhafarka iyo aniga waa isnaqaanaa, sheekooyin badanne waa na soo dhex mareen. Waxaan xasuustaa xilliyada qaar habeenkii oo dhan aflaam iyo wax intaan daawado aan subaxi ku gaaro 4 saac subaxnimo ama 10 subaxnimo ama mararka qaar. Iyo waxaa isoo maray maalmo badan oo aan habeen kasta intaan dhafro salaad subax ka bacdi aan seexa jiray. Haddaba dhalinyarada ama cid kastoo dhafartaba siiba khaasatan dhalinyarada aad ula hadlaa. waxyaabo badan uu dhafarka leeyahay ayaa jiro. Waxaa ka mid ah depression, iktiaab ama walwalka. Cudurro badan oo kaloo dhafarka sababana waa jiraan sida sokorta, dhiig karka iyo cudurro kaloo maanta aana soo koobi karin. Hurdada habeenkii xilliga hore waxaa dhihi karaa waa qadka difaaca jirka, wax kale kuma tilmaami karo. Mar haddaaba intana la soo gaartay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay, balse haddaadan channelka subscribe saarin, subscribe inoo saar, muuqaalka like gareey, wixii fikrad ah inoo heysane commentiga nagula wadaag, muuqaalkane asxaabtaada
u sheergareey. haddaa facebooka naga daawanaysid bejka follow soo dheh like saar wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu